waynaga aragnayoo la soo dooran waa dumarkii dadka wax doortana iyagaaba ugu badan dumarku dadka wax doorta iyagaa ugu badan dadka u dadaalay u halgama doorashooyinka xisbiyada iyagaa ugu badan hablaha markaa may jirin reer caawinaya ama odayaal daba socdo oo kaxaynaya oo leh maanta heblaayaynu dooranayna halkii inanka maanta waxaynu ku bedelaynaa inantaa oo muddo karoo wax inoo qabanayso ma jirin laakiin kii markaa inan ahaaye hadduu doono aan aqoonba lahayn hadduu doono aqoon lahaa laakiin aan waxba reerka tari karayna lacag baa loo guraayay fan baa lala daba taagnaayoo la waday uun ma imika waxa weeye shaqo la'aanti ma jirta waxa ay qaar u arkayaanba inay hawshiiba shaqadii ay heli lahaayeen nimanku lacagta ay ka qaadan lahaayeen dumarka iyagu hawl culays ma saare gurigooda ha joogaan iyadoo in ognahay in haddana dumarku ay maxay tahay soo saaraan dhaqaalaha qoyska ay kaalinta ka marka dadkii mujtamacii markay arkaan dadkan la doortay ee loola tegaya markay arkaan inaan cidina aanay dumarkuna aanay weli dareensaneen xoogooda quwadooda marka ay hadday codkooda isku biiriyaan waxay samayn kari lahaayeen inay kaba badan lahaayeen markay ogaadeen in weli dumarkii aanay dareensanayn awoodooda markay ogaadeen maxay tahay inaan cidina ma garanaysaa suuqa hadduu maro aan su'aal cid weydiinaynin dumarka markasta caqabad baa haysataa caqabadda haysata waxa weeye mid qabiil waxa weeye mid caaqil oo ay kaga imanayso caaqilkeedii iyo qabiilkii iyo reerkoodii dumarku reerna way ka dhashaan reerna way u dhaxaan labadii reer dhexdooda ay caqabad kaga timaada waxaba khasaba dumarkii ma ku tartami karayaan siiba gobolka Maroojeh ama odagaagu ha kula socdo ama inankaagu ha kula socdo waxa filayaa inay adag tahay haddaan koota gaara loo helin si ay uga soo baxaan dumar Hargeysa deegaan iyo baarlamaantoona aniga waxay la tahay in la xoojiyo taa kootada oo dumarkii lagu soo daro oo ay dadkeenu markaasi fahmi karaan inay contribution weyn sameynayaan dumarku boqolkiiba 50 haddaanay ka badnayn mutacalimiin bay leeyihiin dad badan oo fikir badan haya bay leeyihiin aniga waxay tahay khasaare weyn baa Soomaaliland ugu jira dumarka aan ku jirin golayaasha qaranka marxalado aad u fog ayay soo martay kootadanu iminka waxaynu joognaan muddo ilaa dhowr iyo 10 sanadood ah maanta waynu taaganahay marxaladaheedana way runtii marba dhinac bay ahaayeen oo dadkeenu dad waxay ahaayeen reer guraaw badan kootada aan fahansanayn aqoon badan aanu lahayn laakiin waqtigan imika xaadirka dadkeena waxaad moodaa inay soo fahmayaan oo garan karaan kooto maadaama haweenkii ku soo baxeen kuraastii soo fariisteen golayaasha deegaanka baarlamaanka gabadhu inay arrimaha bulshada ka shaqayso sharciga islaamku way gashay iyo diinteena sida awgeed dastuurkeenu wuxuu oranayaa muwaadiniinta Soomaaliland xaq siman bay u leeyihiin inay wax doortaan lana doorto markii halka la yimaado kootada maxaa sabood gareynayeen haysana waxa sabood gareynaya isla dastuurka Soomaaliland wuxuu oranayaa qodobka 6 faqradiisa labaad af Soomaali buu ku qoray cid kasta akhrisan kartaa wuxuu oranayaa dawladdu waa inay dhiirigelin u sameysaa dumarka isla markaana waa inay xeer ka soo saartaa dhaqamada shariicada islaamka ka hor imanaya ee dumarka caqabada ku ah jaamacadaha iyo iskuulada aan tagay waxaan baranayay culunta maxay ahayd siyaasadda waxaan baranayay culunta maxay ahayd arrimaha bulshada waxaan u baranayay waxay ahayd ma yahayn inaan wadamadii ajnabiga joogay siyaasadahooda gala ama bulshooyinkooda wax ka bedelay inaan taydii baahnayd oo aan wax ka bedelo waxa jira haween far badan oo aniga oo kala ah oo saas ah oo doonaya dalkooda inay runtii wax ka bedelaan shuruucda wax ka bedelaan jihada la hayo wax ka bedelaan maxay haytay isku dheelitirka maxay haytay saamiyada ummadda reer Soomaaliland wax ka bedelaan isku haynta iyo horumarinta maxay haytay ummadda reer Soomaaliland wax ka bedelaan maxaa loo oran jiray coolka wadaf ma lagu day marka wixii laga soo quusay la soo waday dabalan ku eegna kootada aynu maxay tahay haweenka chance ku siino ayuun bay isugu soo biyo shubanaysa sharci marka waxaan laga dhigo constitution kuma jirto laakiin maxay tahay shuruucdan maxay haytay doorashooyinka waa la sameyn karaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro in haweenka adigana laga siyaad ka tagtay noqonaysa waa dadee waqti ayuu hayay madaxweynenimada
waa lagu doortay kursigaa lagu geeyey inta badanna waxaa kuu codeeyey kuu cararay haweenka oon kala hadh intooda badan ahayn waxaan rajeynaynaa mudan madaxweyne haweenka hadday kuraasadooda kootada noqoto iyo hadday xusbiyada laga sharaxayo ay noqoto in kuraasyo fiican haweenka la siiyo ood u dadaashid sidii haweenku kooto loogu xidhiidha say matalaad dhaba uga helaan gobolladooda iyo haweenka jamhuuriyadda Somaliland